siyaasi Ismaaciil Hurre Buuba oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku eedeeyay inuu qaaday dhabbii hogaamiyaha keligii taliyaha lagu yaqaanay oo uu sabab uga dhigay inuu dhageysan waayay tabashada xisbiga wadani ka qabo gudida doorashooyinka Soomaaliland. Ismaaciil Hurre Buuba oo khadka taleefanka ugu waramayay shabakada caalamiga ee Harunag News ayaa ka hadlay sida kaliya ee lagu xallin karo tabashada saami qaybsiga ee taagan, waxaana uu yiri saami qaybsi hagaagsan oo la samayn kara ma jira haddaan tirokoob la samayn, waayo laanna waxa weeyaan dadku waa hal iyo cod weeyaan. hadilmeed maaha dhirtuna ma boodgalayso, xooluhuna ma boodgalayaan, dadkaa boodgalaya marka waa in tiro la sameeyaa. hadilmeed muxuu ahaa boqolkii kuna qof baa hadilmeed muxuu ahaa la yidhahdo hadilmeed muxuu ahaa kursi bay leeyihiin gargasaa dadka loogu qaybiyaa. wixii kaloo dhan waxa weeyaan aan ku jiida cadaas weeyaan. hadilmeed imika doorashadii waxa la mudeeyay in la qabto dabayaaqada sanadkan 2019 marka arrinta saami qaybsiga ma ku muuqataa in laga soo horeysiin karo intaan doorashada la gaarin? aniga waa laga soo horeysiin karaa, waxay waxa kasta ku xidhan yihiin hadilmeed tirokoob wanaagsan oo la sameeyo. waxaan lagaba hadlayo oo dhan way iska dhammaan lahaayeen. Ismaaciil adiga see kuu muuqataa tabashadii xisbiga wadani ahayd in komishiga doorashooyinka la kala diro? maxaa hadilmeed aniguna shan xubnood baan leeyahay, aniguna xubin keliya leedahay sidee yaa aqbalaya hadilmeed muxuu ahaa cidda isla hadilmeed muxuu ahaa shan xisbi anigoo shan xubnood aniguna xubno kaalayo sidaasaa walayaashu ay noqonayaan. anigoo shan baan leeyahay midkaa leedahay dee ma suuroobayso. si ay doorashadiina u dhacdo si doorashada ugu dhacdo guddidan hadilmeed muxuu ahaa laga hadlayo hadilmeed muxuu ahaa iyadu axsaabta u noqonaysa hadilmeed dhexdhexaad u noqonaysa. waa in si hadilmeed muxuu ahaa ku salaysan qarada xisbi kastaba uu leeyahay hadilmeed muxuu ahaa ay ku yeeshaan hadilmeed halkaas. dawladdu hadilmeed maanta jirtaa waxay kursiga ku fadhidaa 50% bay heshay. hadilmeed wadani waxay heshay saddex iyo konton bay heshay kulmiye, wadanina waxay heshay 43, cidda waxay heshay 4. waa in lagu kala siiya horta hadilmeed xubnaha meesha jooga ee siyaasada noqonaya qarada ay leeyihiin. waxa aniga ila tahay hadilmeed sidaasina waxay noqonaysaa 3 kulmiya, 3 wadani iyo hal ucida in hadilmeed lagu sameeyo 7 sidoo loo daayo. ama cidii doonaysa inay xabadeeda bedesho ama labadeeda bedesho ama saddexdeeda bedesho cidii kalena daysato. alla isku dheerin maxaa la isu wareerinayaa? Ismaaciil maalmihii dhowtay laba xisbi ucid iyo kulmiye waxay sheegeen doorashooyinka haddii xisbiga wadani uu geli waayo ee doorashada gelayaan in doorasho ma geli kara laba xisbi. wax lagu qoslo maya mana geli karaan. hadilmeed muxuu ahaa laana waynu ogsoonahay labadan xisbiye sheeganaya midna wuxuu leeyahay 4 hadilmeed 4% buu helay, midna 3% buu helay. kolka xisbiga kulmiyuunba hadilmeed doonaya inuu noqdo xisbi keliya meesha iska loo walaaqda aan cid la tartamaan aanay jirin. wataasina waxa weeyaan dariiqa loo maro hadilmeed maxaa dictatoriyada weeyaan. waxa caqliga gala ma aha. kolka hadilmeed muxuu ahaa dee wax kale ha la yimaadeen, laakiinse caqligaasi waa caqli hadilmeed muxuu ahaa caalamku maanta ka koray uu si wanaagsan u fahmay dariiqa loo maraa hadilmeed dictatoriyada wuxuu yahay. madaxweynaha Soomaaliya imika muddo sanad ayuu taladii dalka haya, maxaa ku muuqatay oo qabtaa la oran karaa? wallahi yani hadilmeed sanad kaliya meeshii joogay 4 waa u hadhay, muddo dheer baa u hadhay. waa in hadilmeed muxuu ahaa xisaabta kale siday ula shaqayn lahayn. khaasatan waxaa looga baahan yahay madaxweynuhu xisbiga wadani sidii ay hadilmeed muxuu ahaa wax u wada qaban lahaayeen. laanno aqlabiyada dadka hadilmeed muxuu ahaa wadanka jooga waxa weeyaan waxay taageersan yihiin hadilmeed muxuu ahaa wadani bay taageersan yihiin. hadduu doonayo wadanka inuu hadilmeed hantiyo oo si wanaagsan hadilmeed oo loo ogolaado hadilmeed xukunkiisa waa inuu hadilmeed muxuu ahaa wax la qabsadaa wadani oo hadilmeed funta usoo dhaadhaca. xisbigiina laakiin Ismaaciil waxa lagu eedeynayaa inaanu commission diid ahayn oo doorasho diid yahay. arrintaas adigu ma qabtaa? been waxaas iska hadaltida weeyaan. xisbigu hadilmeed wuxuu doonayaa doorasho xor oo xalaal ah siday ku hadilmeed fiiro walayaal hadilmeed
dhexdhexaad inay jiraan oo hadilmay loo wada siman yahay laakiinse aniga hadilmay maxaa ahaa cidda hadilmay waxa maamulaysa soo dooranaya oo hadilmay maxaa meeshii waxaa jiraysa doorasho xor oo xalaal ah waa la ogsoon yahay aan hadilmay taas suuragal ahayn kolkaas hadilmay aniga waxay la tahay hadilmay khibrad inuu filan waa helay wadanku hadilmay intaasoo goob hadilmay intikhaabad soo galay waa la ogsoon yahay hadilmay soo waxyihiin sidii hadilmay lagu wada shaqayn karo waa in hadilmay maxaa ahaa xisbiga xaakimku ka fikiraa inuu hadilmay ahaa ku dhaqmo maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan shabakada caalamiga ee Harwanaag News Hargeysa